ayaga raalli ka ah in la xiro waa ku soo wadeeshiyeen qabiilku wax yiraahdeen si kale wax ku imaan mayaan hana la xiro reer Baydhabo hadduu yahay iyo reer Kismaayo hadduu yahay iyo reer Xamar hadduu yahay iyo reer Jowhar hadduu yahay haddii leedihiin dadka koonfur galbeed anta jooga kaligood leedihiin waxa idan barayna inay dadkiin halkan joogan idan tusayna idan barayna daawadayaal soo dhawaada codadka daawanayseen waa gudoomiyaha gobolka Mudug oo ka jawaabaya niman odayaal ah oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya oo dhawaan lagu xiray magaalada Gaalkacyo dhanka Puntland nimankan odayaasha ah ayaa ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya sababta lagu xiray gudoomiyaha gobolka Mudug oo aan codkiisa inii deyn doono ayaa inoo ka warami doona sidoo kale qodobadan caawidiin hayana waxa kamida dhanka kale koonfurta Soomaaliya ama koonfur galbeed dad kamida ayaa arintaas iyaguna ka falceliyay siday uga falceliyeen ayaa iyaguna kula wadaagaya iyo sidoo kale odayaasha iyo sidoo kale nabadoonnada iyo ganacsatada gobolka Mudug ayaa soo saaray warqad dheer oo ay kaga hadlayaan in gobolka Mudug ay Puntland ama xukuumadda hadda joogto ee Saciid Cabdullaahi Deni aysan waxba ka qaban arrimahaas oo dhan ayaa kula wadaagi doona iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Nugaal oo ku dhawaaqay in siyaasiyiinta reer Puntland aysan wax sharar ah aysan ku qabsan karin magaalada Garowe sidoo galabta ka dhawaajiyay qodobkaas iyo waxa uu ka dhigan yahay ayaa inala wadaagaya adiguna bal commentiga nagula wadaag fikirkaaga ku aadan in siyaasiyiinta reer Puntland loo diido inay shirar ku qabsadaan iyo sidoo kale inay xafiis ka furtaanba magaalada Garowe ee caasimadda Puntland sida uu gudoomiyaha sheegay xilli Puntland ay rabtay inay dimuqraadiyadii ay dhawaan qabatay ama doorashooyinkii qof iyo codka ay qabatay ay sii wado arrinkaasi ma ka hor imaanaya dimuqraadiyadii ay Puntland ku taamaysay dhanka commentiga nagula wadaag intaan kula wadaagin wararkan oo faahfaahsan daawada wax ka codsanayna YouTube-ka ku soo birto subscribe dhahdo muuqaalka laga saarto gabalkana furato haddii aan ku bilaabo dhawaan sawirro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay niman odayaal ah oo isugu jira nabadoono ganacsato oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya oo lagu xirxiray meel guri ah sawirana laga soo qaaday Facebook-gana lagu daabacay ayaa guud ahaan baraha bulshada Soomaaliyeed qabsaday si gaar ah reer Puntland oo aad looga falceliyay nimanka odayaasha ayaa la sheegay inay ka soo jeedeen koonfur galbeed waxaana xirxirtay sida la sheegay rag reer Puntland ah oo nimanka odayaasha ah wax ka tabanayay gudoomiyaha gobolka Mudug oo arintaasi ka hadlay waxa uu sheegay in nimankan odayaasha ah oo sawiraantooda baraha bulshada lagu baahiyay loo haystay deyn muddo socotay iyaguna ay arrinkaas sameeyeen si deyntaas loola xaliyo dhanka kale dhalinyaro iyo sidoo kale siyaasiyiin ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ayaa arrintaas ku tilmaamay arrin aad looga xumaado dawladnimada iyo dadka shacabka reer Puntland ba ku noqonaysa nabar xun oo ku yaala maadaama rag odayaal ah oo isugu jira ganacsato iyo sidoo kale nabadoono lagu xirxiray silsilado kadibna sawiraan laga soo qaaday si xun loola dhaqmay dhanka kale odayaasha la sheegay in silsiladaha lagu xirxiray sawiraanta laga soo qaaday ayaa iyagu hadlay waxa ay sheegeen in arrintaasi ay kula kaceen dad ka tabanayay arrimo qabiil ama aan dhahay aana qabiil ka tabanayay inay intay xirxirteen guri ku soo xirteen silsiladana ku xiray mar isla markaasna aan wax gogol iyo cunto midna aysan siin waa sida iyagu hadalka u dhigeen balse gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa arrintaas oo dhan beeniyay waxa uu yiri sida tan social media maanta haystay Baydhabo niman reer Baydhabo wada hadlayay waxaan rabaa inaan ka hadlo dadkana ka jacayl bixiyo nimayow 19 sano ka hor bay nin dileen 19 sano waxa laga soo saari lahayaa ninka magtiis maalin ayaan dhawaa 7 bilood ka soo wareegtay ayaga nin laga dilay ninkii laga dilay waa loo soo qabtay waa loo keenay qisaasta la yiri fiiri gobonimada Gaalkacyo taala idin sheegaya nimanka reer Baydhabo ninkii baa loo keenay ninka dilay waxa la yiri waa loo yeeray aabihiisa yimid qisaasta la yiri qisaas ma rabeed waxaan rabaa yiri diyo aan ku bedeshay diyadii waa loo aruuriyay waa diyaar anaga maamulka ninkii baan soo qabanay waa keenay odaygii baan u yeeray waxaan niri diyo hadduu rabo diyadiisii muddo qabsada muddadii ay qabsadeen baa diyadii loogu aruuriyay
ninkan dhalinyarada ah oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ayaa isaguna ku hanjabaya in raggaasi xun loola dhaqmay waxa uuna sheegay in shacabka reer Puntland ama Puntland dad ka soo jeeda ay ku nool yihiin koonfur galbeed iyagana sidaas iyo si ka daran loola dhaqmi karo haddii aysan shacabka reer Puntland ama dawladoodu aysan ka waantoobin arrimaha foosho xun oo dadka reer koonfur galbeed lagula kacayo haddii leedihiin dadka koonfur galbeed anta jooga keligood leedihiin waxa idan barayna inay dadkiin halkan joogaan idan tusayna idan barayna dhanka kale waxa uu tilmaamay ninkan dhalinyarada ah in ay dadka reer Puntland ba ama shacabka dadka soo jeeda reer Puntland aan dhahay ay ku nool yihiin iyaguna koonfur galbeed sidaasna loola dhaqmi karo waxa uu tilmaamay in ilaa ay Ramadaantii ama bishii Ramadaan dilal loogu geystay magaalada Garowe dad aad u tiro badan oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya arintaasna ay tahay arin aad looga xumaado dhanka kale magaalada Garowe gudoomiyaha degmada Garowe ayaa sheegay gudoomiye Geedi ayaa sheegay in wax shirar ah aysan mucaaradka Puntland ku qabsan karin magaalada Garowe waxa uu sheegay in Puntland dagaal ku jirto xilligaana loo baahnayn shirar macna darro ah iyo xafiisyo magaalada Garowe laga furo arintaasna waxa uu sheegay in dhaawac ku noqonayso dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh dhanka kale mucaaradka Puntland ayaa iyagu wili ka hadlin arintaas dhawaan ayay ahayd markii golo siyaasadeed ay Guule Saalax Barre oo kamid siyaasiyiinta reer Puntland iyo siyaasiyiin kale oo tiro badan ay ka fureen magaalada Garowe ee caasimadda Puntland golo ay ugu magac dareen golaha siyaasadda iyo dimuqraadiyadda Puntland oo laga hirgeliyay Garowe kaas oo ay dad badan ku midoobeen balse arrinka gudoomiye Geedi ayaa arrinkaas ka hor imaanaya ay dhawaanta daahfureen waxa uuna gudoomiye Geedi sheegay in shir dambe iyo sidoo kale xafiisyada aysan ka furan karin mucaaradka Puntland magaalada Garowe dhanka kale maamulka dhanka kale aan dhahay ganacsatada iyo sidoo kale waxgaradka gobolka Mudug ayaa maanta waraaq dheer soo saaray oo ay kaga hadlayaan xaaladda gobolka Mudug waxa ay sheegeen in Puntland ay ka gaabisay wax qabadka magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale guud ahaan gobolka Mudugba marka loo eego wadooyinka Gaalkacyo iyo Garowe isku xira iyo sidoo kale magaalada Gaalkacyo iyaduna dhawaanaha uu ka socday kacdoon ku aadan in aan magaalada dhexdeeda waxba laga qaban dawladda Puntlandna aad uga soo horjeeday intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena caawa haddii aad ku cusub tahay YouTube-kayga waxaan ka codsanayaa inaad ku soo biirto subscribe dhahda muuqaalka layga saarto gambalelkana furato aad baa u mahadsantiin